السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانيغو عبد الله عبد علي iyo isxaaq cabdi isxaaq youtube channelka aad daawanaysan waa Story channel. Okay. barnaamijka maanta ay idin wadno waxa weeyaan waa sheeko xikmad badan oo aan rajeynayo inaad u wada riyaaqi doontaan aad wiilana gaarsiiyo sheekadeenana waxay ku saabsan tahay gabar gidi jirtay caano iibin jirtay gabadhaas caano leedahay waxay ku nooleed tuulo aad u yar subax kasta ama aroor kasta waxay lisi jirtay sacana waxay ka lisi jirtay caana ayay ka lisan jirtay caanahaasi waxay u iibgeyn jirtay suuq ayay u iibgeyn jirtay si ay uga hesho lacag subaxyada ka mid ah saci ayay waxay ka soo listay caano aad u badan waxayna ku fikirtay in caanahaas ay ka heli doonto lacag aad u tiro badan lacagtaasi ay ka hesho caanaha waxay ayadoo niyaddeeda ka hadlayso weeyaane waxay isdhahday waxaad ku gadan doontaa dooro ayaad ku gadan doontaa dooradaas waxay ku dhali doontaa ukumo badan ukumahaasi markii la fiiqana waxaad ka heli doontaa digaagad aad u badan digaaggaasi waxay dhali doonaan ukumo aad u badan ukumahaasina waxaad u iibgeyn doontaa suuqa si ay lacag badan uga hesho aadna u noqoto qof taajir ah ayadoo waddada lugeynayso ay gabadhii way sidbatay ama way taraaraxday wax la yidhaahdaba caanihii ay siday ayaa ka daatay oo caanihii way ka wada ilaadeen marka xikmadda sheekada nooga jirta waxay tahay wax aadan gacanta ku haynin inaadan xisaabin macnaa ama aadan tiranin طبعا عبد الله عبد علي وشيك قلنا عن شيكان ما كان فينا لكن شيكان واسيدا نو شيكتي انا وحوي wax gacanta aan ku jirin macnaha xisaabin okay عبد الله لعله macnaha gabadhaas meeshii joogtay hadaa joogi lahayd maalintaas maxaad samayn lahayd dabcan ani horta waa damac badanahay haddii mar lidho haddii farxiyo la ii sheegay bis waa laakiin farxiyo haddii mar lidho ama farxiyo lacagan ka wada macnaha lacag haddii loo macnaha waxa waaye aada lacag u jeclaha si u fikirta laakiin dadka bini'aadanka way kala fikrad duban yihiin qof walba waxbuu ku fikirayaa laakiin haddii even caanuli ahaan lahaa caanigaa suuqa iska geysan lahaa waa iska gadi lahaa qarashka iga soo baxaan arki lahaa laakiin ani doorin aan ku gado ama fikraddaas iguma jisin jirin laakiin waxa waaye laakiin dabcan hadeer macnaha taas saas uma jeedaan waxaan uga jeedaa gabadhaas dabcan markii hore waxay ku haminaysay ama waxay macnaha ku taamaysay inay taajir ay noqoto dabcan laakiin hadeer macnaha arrinta soo baxay waxay noqotay tii fashila meesha ka imaada tii tukduuna noqotay صح laakiin dabcan macnaha qofka kufay macnaha waxay ka daateen haddii adi aad noqon lahayd dabcan macnaha responsiga ama jawaabta aad bixin lahayd maxay noqon jawaabta aan bixin lahayn waa iska oylaan lahayd caani aan kusoo daalay oo maanta dhan asuulisay oo maanta wadada intaa soo socday aan ku fikiraya in yani waxaas aan ku qabto waxaas aan ku sameeyo waxaas aan ku sameeyo wixiina yani ilaahay qofku walba uu iska fikiraya soomaa markaa wadada lugeynaysa ama keliya markii aad tahay waxaa samaynaysa maanta dhan niyadaada waxbaa kusoo dhadhacaa ana caanaha iga daadan lahaayeen waayo wixii aan ku fikiraya dhan way fasimeemo daadkay raaceen iska oy lahaa